dabool weelka guriga yaala oo wada foorari hana ka seexan iyadoo wasakhi ku jirto sababtoo ah weelkaasi wuxuu noqon karaa goob shaydaanku ku soo ururo kuna soo dego habeenkii iska gufee albaabka hoostiisa iyo daldalool kastuu gurigaagu leeyahay habeenkii markaad seexanayso albaabka iyo daaqadaha guriga oo furan habeenkii haddii aad ka seexato ma ogtahay khatarta ka dhalan karta sidoo kale halis ayaad ku jirtaa haddii aad ka tagto habeenkii weelka guriga yaala oo bilaa daboola amba wasakhi ku jirto caafimaadkaaga ayaa khatar geli karaa haddii aanad iska hagaajin goobtaad seexanayso iyo jirkaagaba waxaa kugu dhici karaa xanuuno iyo cudurro halis ah oo ay ka mid yihiin kuwan soo socda soo dhow mar kale daawade waanigoo ah Nadare Saciid laga yaabaa inaanad mar kale arag haddaba nagu soo biir imaka naguma khasaari doontide sidoo kale xaqiisa sii muuqaalkan adigoo like saaraya mahadsanid afartan calaamadoodan kuu sheegi doono waxay kaa caawinayaan inaad naftaada u ilaaliso caafimaad ahaan iyo maskaxiyanba number 1 ma ogtahay haddii aad seexato habeenkii albaabka iyo daaqadaha guriga oo furan waxa kugu dhici kara amnigaaga ayaa khatar geli kara haddii aanad iska xidhin albaabka iyo daaqadaha intaanad seexan ka hor sidoo kale iska gufee meelaha daldaloole ee guriga intaanad seexan waxa kaaga soo geli kara bahalo halis ah oo ka mid yahay masku amba cayayaan kale number 2 ma ogtahay khatarta ay leedahay inaad seexato goob uskag ah haddii aan kuu sheego waxa kugu dhici kara haddii aad jiifsato goob wasakh badan waxay kugu noqon doontaa argagax iyo layaab halis ayaanad ku jirtaa haddii aanad nadiifinin jirkaaga iyo goobtaad seexanayso nadaafad xumadu waxay hoos u dhigtaa difaaca jirka iyo tayada maskaxda taasoo keeni karta sababtana walwal badan iyo walbahaar dhibaatooyinka caafimaad ay sababi karto nadaafad xumadu waxaa ka mid ah infekshanka maqaarka finan cuncun iyo koritaanka bakteeriyada amba loo yaqaano fangaska waxay sidoo kale keeni kartaa hurdo la'aan cayayaan yaryar iyo neefsashada oo qofka dhibta number 3 ma ogtahay halista aad ku jirtid habeenkii markaad seexanayso haddii aanad daboolin weelka guriga yaala oo dhan amba aanad wada foorarin ka wada qub wasakhda ku jirta adigoo daboolaya meel nadiifana dhig habeenkii markaad sii seexanayso haddii aanad sidaa samaynin weelkaasi wuxuu noqonayaa goob shaydaanku ku soo ururo kuna soo dego xadiisyo badan ayaa tilmaamaya in aynu sidaa samayno number 4 badi dadka bulshada ee adduunka ku nool waxaa la sheegaa habeenkii markay sii seexanayaan inay bilaabaan fikir badan fikirka xad-dhaafka ah ee ku saabsan waxyaabo aanad xallin karin isla markiiba wuxuu keeni karaa isagoo qofka ku sababaya walbahaar iyo hurdo la'aan markaad seexanayso maskaxdaada ha ku furin buuq iyo warwar haddii kale waxaa kugu dhici karta inaad seexan weydo waanigoo ah Nadare Saciid waad ku mahadsantay daawade haddii aad nala soo gaadhay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan u sheergaree muuqaalkan qof kastood la jeceshahay wanaag sidoo kale like saar waa inooyo mar kale iyo fiidiyoga kan xiga